haddana ila soo dhaweeya kelimadii فضيلة الشيخ الوالد الشيخ مصطفى حاجي إسماعيل هارون أسباب النصر والهزيمة، فليتفضل مشكورا مأجورا بإذن الباري. إن شاء الله. هلا يلي. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه، وبعد فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إذا نواد عشان بانو ملايين صلاة عشان ولا قاري أنا ونقول هذا السرچوك وحوش يكتمل. أن أسباب النصرنا قرآن كوين بدن مكهد لي أصل وحاء تدكو حق حمها ومجوران أما حق السماها ومجوران إنه يجي ما دمويا. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إلهي سبحانه وتعالى وحليه دول الله وحكمة قديه إلا إياه أي يجو نفتو دس قديان موياني هدي وانا كتشرين إلهي كما ضاديه إن يجو نفت السمايان موياني هدي ديب كتشرين لغا ما صارو إن يجو اسبدل كلا يمادان موياني هدي dhibta maanta muslimiinta haysatee tirada badan leh dhibta maanta tirada badan leh muslimiinta haysata meelay joogaanba waxaad moodaa in la soo celcelinayo su-aashii ahayd awalamaa asaabatkum musiibatun qad asabtum milayha qultum anna haada qul huwa min cindi illaah. su-aashii saxaabaduba weydiinayeen nabiga calayhi salaatu wasalaam oo ilaahay leeyahay subxaana wa tacaala markii dhibaydeen haleeshay ayaa waxay isweydiinaysaan anna haada. masaladaas waxay ku timaadaa ama sunanka ilaahay oo la ilaabo ama gafla ay ku dhacdo, dadka waa ghaafiliin ka noqdaan. dhibtu markay timaadee mashaakilku muslimiinta ku batayna qaar way quusteen oo ya'si baa ku dhacay ilaa xad ay gaadheen inay yidhaahdaan marka ciise calayhi salaam soo degay iyo mahdigu markuu yimaado iyo markaa unbaa guuli imanaysaa ee inta ku horeysa waxba ma jiraan. qaarna mutahawiriin bay noqdeen oo caatifun baa intay qaaday iyagoo aan waxba isku duwanin ayuunbay ismaqiiqeen. marka diinna wax badan may tarin, dadkii iyo addoomihiina inay dhibeen baaba laga yaabaa. qaar kalena waa isdhiibeen oo bulshadii gaaleed iyo wixii baa la yidhi war aan iskala mucaamilo aan munbatixiin ayay noqdeen. laakiin inta saxda ahi waxa weeyaan kuwa fahmay ilaahay subxaanahu wa tacaala sunankiisa. haddaynu eegno markaa maadaama waqtigu iska koobayo qur-aanka iyo xadiidku sunanka ay tilmaameen cinda almuslimiin sunnada ugu horeysa waxa weeyaan aliimaan walcamal الصaalix. إنا لننصر رسولنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. إلهي وحليه سبحانه وتعالى وحنؤهي لنينا رسول شيئا إيا والذين آمنوا إيا كوا إيمانك لغاها ليبا وأهي لنينا قرمة في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. الدنيا آخرة وأهي لنينا با إلهي تلمامي سبحانه وتعالى ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين. إلهي وحلي كورك يغا وحانو صاري dadka mu'miniinta ah inaanu u hiilino u gargaarno. idan waa iimaan dhab ah oo iimaanka qur-aanku in badan ka warramaya ah.
walan yajcala allahu lilkaafiriina cala almu'miniina sabiila. ilaahay wuxuu leeyahy subxaanaه wa tacaala kuwa gaalada wadda loo yeeli maayo ay kuwa mu'miniintaa kaga xoog batan hadduu iimaanku dhab yahay. idan waxaynu leenahay iimaan iyo camal saalixa. wacada allahu aladiina aamanuu minkum wacamiluu الصaalixaati layastakhlifannahum fi اlأrض kama istakhlafa aladiina min qablihim. ilaahay wuxuu leeyahy subxaanaه wa tacaala waxaa rabbi u yaboohay kuwa iimaanka laga helo ee camalka suuban sameeya in dhulkana alla subxaanaه wa tacaala uu makanin karo. aayaadkani 4 shay bay tilmaameen markaynu soo duuduubno: aljamaaca almu'mina iyo taxaquq اliimaani fiiha in la helo jamaaco ilaahay rumaysay, si dhaba u rumaysay oo iimaanku dhab ka yihi. muslimka maanta jooga in badan oo ka midi waxay shaki kaga jiraan hadday si dhaba diinta u qaataan inay liibaani waayaan. haddaynu diinta ku dhaqanno gaala ayna qabsanaysa, haddaynu diinta qaadano gaala, ama waxaaba shaki kaga jira sharciga haddii la qaato armaynu jabnaa. yani wuxuu shaki kaga jiraaba ilaahay kitaabkiisa iyo sunnadii nebi maxamed hadduu ku dhaqmo in lagu liibaanayo inaan lagu liibaanin baa muran ka taagaya inuu rumeeyo. dee iimaankaasi noqon maayo iimaan guulaysanaya. iimaanka guulaysanaya inu sheegayna waxa weeyaan waa iimaan aamanuu biاllah uma lam yartaabuu, ilaahay rumeeyey oo aan shakina soo gelina yaqiin dhaba qaatay. ka labaad ee aayaadkani tilmaamaya waxa weeyaan waa camilu الصaalixaat, camal wanaagsan sameeyey oo ay ilaahay sharcigiisa oo ay fuliyeen wixii alla faray oo ay ku dhaqmeen. minkum baa ilaahay yidhi aladiina aamanuu wacamiluu الصaalixaati minkum, oo idinka mida. khitaabku waxaa la yidhaahdaa wuxuu ku dhacayay saxaabadii iyo nebiga calayh الsalaatu wasalaam kuwa waxa kaloo la mid noqon kara markaa man calaa manhajihim, iyaga waxa kaloo ka mida kuwii iyaga raacay, kuwii taabiciinta u ahaaye calaa nahjihim ku dhaqmay. qodobka afraad ee aayaddu tilmaamtayna waxa weeyaan walayubadilannahum min bacdi khawfihim amna yacbuduunani laa yushrikuuna bi shay'a. in shirkigu uu meesha ka baxayo oo dadkaasi ilaahay subxaanaه wa tacaala cibaadada inay u khaalis yeelayaan, laa shirka akbar walaa shirka asqar, shirki oo dhan inay ka tegayaan oo ilaahay subxaanaه wa tacaala u khaalis yeelayaan. idan waxaan leenahay qodobka koowaad ee nusuusta inta badan ku qoranay waa aliimaanu walcamal الصaalix. qodobka labaad ee nusuus badan oo qur'aan iyo xadiidba ka mida ay tilmaamayaana waxa weeyaan in ilaahay diintiisa aynuu haylinayno oo ilaahay subxaanaه wa tacaala wuxuu leeyahy walayansuranna allahu man yansuruh ina allaha laqawiyun casiiz. aayadda gebagabadeedu baan akhriyay aladiina ukhrujuu min diyaarihim bigayri xaq ila an yaquluu rabbuna allah walowlaa dafcu llahi الnaasa bacdahum bibacd. ilaahay markaa wuxuu ku gebagabaynayaa walayansuranna allahu man yansuruh. inta adawaad tawkiid oo tiro badan ilaahay ku daray ayaa ilaahay wuxuu leeyahy ilaahay waa u hiilinayaa kuwa isaga u hiiliya. goormaad ilaahay u hiilisay? waa markaad diintiisa u hiiliso. aladiina in makannaahum fi اlardi aqaamuu الصalaata وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. وكوا با إلهي لي دولك مركان غعنتا وغليو صلاة اوغيا oo wanaaga dadka faraya oo xumaha dadka ka reebaya kuwa weeya. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم والذين كفروا فتعسى لهم وأضل أعمالهم. إلهي وحين لي kuwa iimaanka laga helayo in tansuru llaha yansurkum, haddaa ilaahay u hiilisaan ilaahayna subxaanaه wa tacaala waa idiin hiilinaya. gomadiinna ama cagihiinnana waa sugaya rabbi subxaanaه wa tacaala. waaladiina kafaruu fatacsan lahum waadalla acmaalahum, kuwa gaaloobay ee ilaahay subxaanaه wa tacaala ka dheeraadayna tacsi intikaas min amrihim wakhudlaan baa u sugnaaday, waa hoogayaan baa kuwa ilaahay leeyahy. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين
إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. إذن waxaan leenahay qodobka labaad ee nusuusta badani ku soo aroortay qur-aanka ka midi waa inaynu ilaahay diintiisa u hiilinayno. hadda in badan oo inaga midi marka ay danahooda kale wadaan ayay diintana dabada ka soo yara daliishadaan. oo reer baa dagaalamaya, markuu reerku dagaalamayo markaasuu xadiid keenaya ah man qaatala duuna maalihi fahuwa shahiidi. marka hore keeni maayo inuu ilaahay tiisa u dirirayo oo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu diintiisa rabo inuu sugo, laakiin diintu waa tabac la daliishado, dan kalena la wataa oo loo socda. idan inay daacad inaga noqoto waxaynu u hiilinaynaa inay tahay ilaahay subxaanahu wa tacaala diintiisa. qodobka saddexaad ee nusuus badan oo qur-aanka ku soo aroray waxa weeyaan التوكل على الله والأخذ بالأسباب. إلهي إنه تلصارنو يقين تاسق قادنو أو قرنو إلهي قعنتي سيني دنودي بكو جرتو مركز وحبها تحقات كالرادسة انت بدن باهي وير يري هداك ودعان حوغا دقالات باهتي مركها واحد كيف كريسة برتلو يحكو طري كريا صح أصحاب تادي قرابتي يدتك كوغو دوا. لكن أسألك وحويا قفك مسلم كي مركز تبين كتير سنادو من بيده ملكوت السماوات والأرض. إله قعنتي سوح ولي بكتيران مركاين إنه إلهي تلصارنو إنه قادنا إننا محي أسبابته. إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون. إلهي وحينا له سبحانه وتعالى وهدي إلهي دين هيليو فلا غالب لكم. عدي دين كقول يسني سامجرته من إلهي كحب هذا باجره ما جماعة إلهي سبحانه وتعالى كحب هذا باجرته. إلهي ما لانا يوقرنا بك إيمانيا سأوجد با إلهي وحلي هدي إلهي دين هيلينيو yaa idinka xoog badan kara. war hadduu ilaahay ku hoojinayana faman da aladii yansurukum min bacdi, ilaahay dabadii yaa kale idin gargaari kara. laa maraykan baan kuu gargaari karin walaa cid kale haddii ilaahay ku hoojinayo subxaanahu wa tacaala. idan asalku waa maxay? inaynu ilaahay tala saarno. wacala allahi falyatawakkal ilmu'minuun baa ilaahay leeyahy. ilaahay subxaanahu wa tacaala ha tala saartaan kuwa mu'miniinta ah. فإذا عزمت فتوكل على الله با إلهي النبي كلها إن الله يحب المتوكلين. مركات قوان سطان آيات وحي كور رمي سويد لقى كور رمي غزوة أحد يوحي كدعي فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا وتوكل على الحي الذي لا يموت وصبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. إذن إنه إلهي تلصارنه لكن تلصار الشهادة وحا لصعده الأخذ بالأسباب. سوماليدو ملا معناها سنيغو ربينا الشيغان بيدادان إلهي وحجري إلهينا ما أرنيني إلهي وحجري ميل بيرسان سيحو أنكو بدبادية بيدادان. وأن معناها سيربينين كترجمان نصوص القرآن كي حديث كتلمام السي وحين نقدر لأن مركا إلهينا تلصارته أسباب الشرع والشيغين إنها تقاضت. ولذلك بقى جهاد يحوق يتقال يمركا لقوا الرمي إلهي وحين لي وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. ديار صدب إلهي يري ما استطعتم من قوة وحي أودان أود باليري نبي عليه الصلاة والسلام أود أسيوح كت المام الرمي ما أنت الدنيا ده وحلا طورة بالسكود لا سسموه بدي سيف يمدي يد فاد يباك على سودا أما حبض قريها لجرده أما مدفع لجرده أما
gantaal ha laga soo rido ama dayuurad ha laga soo rido waa ramyi uun waxaa maanta dunida yaalla nabiguna calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku tilmaamaya quwada nasku uu sheegayaa inuu yahay alramyu saa daraaddeed ilaahay wuxuu ina leeyahay diyaarsada ma statactum min quwa iyo wa min ribaati alkhayr taasoo turhibuuna bihi caduwa allahi wa caduwakum taasoo aad ku cabsi gelinaysaan cadowgiinna iyo cadowga ilaahayba subxaanahu wa tacaala idan ninkii reer miyiga ahaayee intuu neefka xoolaa soo kaxaystay yidhi intuu nebiga u yimi calayhi salaatu wasalaam ilaahay rasuulkiisa iyo miyaan dabraayo ilaahay baan tala saartaa mise waa iska sii daayo ilaahay baan tala saartaa buu yidhi nebigu wuxuu ku yidhi caqilha watawakal cala allah war dabro xidh neefka dabeetana ilaahay u tala saaro subxaanahu wa tacaala qodobka afraad aynu tilmaamaynaa waxa weeyaan athabaatu cinda alliqaa nasrigu wuxuu ku yimaadaa dadku markaa la kulmo ee gaalo lala kulmo ee goob dagaal la joogo inay dadku sugmaan walidalik baa markii dhallinyaradu ay yaaceen nebigu muxuu lahaa ana annabiyu laa kadib ana bnu cabdilmuطalib gaswatu xunayn لا والله ما ولى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولكن ولى سرعان الناس فلقيتهم هوازن بالنبل وكيلها البراء بن عازب markay yidhaahdeen waa saxaabadii ama nebigu miyuu cararay bay weydiiyeen wuxuu yidhi maya ilaahay baan ku dhaartay nebigu marnaba ma cararin ee dadka kuwii fududaa dhallinyarada ahaa baa cararay markay hawaasin gamuunka ku gantay laakiin nebigu calayhi salaatu wasalaam isagoo iyaga dhex taagan buu ku dhawaaqayay ana annabiyu laa kadib ana bnu cabdilmuطalib ilaahayna wuxuuna leeyahay laqad kaana lakum fii rasuuli illaahi uswatun xasana nabigu calayhi salaatu wasalaam marka hore wuxuu inoo tilmaamay yaa ayuha annaasu laa tatamanaw liqaa'a alcaduw war dadkow ha tamaninina cadowga la kulankiisa wasalu llaha alcaafiya ilaahay caafimaad qabka nabadgelyada weydiista faidaa laqiitumuuhum fasbiruu haddaase goob dagaal timaadaan oo ay dhacdo sabra buu nebigu yidhi waxaana ogaataan ana aljannata taxta dilaali siyuuf jannadu inay seefaha hadhkooda taallo markaasuu nebigu bilaabay duco allahuma munzil alkitaabi wamujri aلصaxaabi wahaazim alaxzaab ihzimhum wansurna calayh ka shanaad ay culammadu sheegeen waxa weeyaan waa altadxiya wاshajaaca wاlbuطuula geeri la-aan guuliinta badan ma timaado wayatakida minkum shuhadaa waa in lagu talagalaa marka taasina waxay ku dhacdaa shajaaco geesinimo iyo naffuridii inay jirto inaad ogaato geeridu waktigii malakulmoodkoo loogugu talagalay inuu nafta kaa qabto kama soo horayso magacyadunbaa isbedbedela aynamaa takunuu yudrikkum اlmowt walow kuntum fii buruujin mushayada meel kastoo aad joogtaanba baa ilaahay leeyay geeridu waa idinla kulmaysaa xataa haddaad buruuj la adkeeyey dhufaysyo adag xataa haddaad ku jirtaan geerida marnaba idin dhaafi maysa baa ilaahay leeyay subxaanahu wa tacaala idan shaacirkii carbeed waa kii lahaa man lam yamut bisayfi maata bigayrihi ninkaan seeftu dilin dee gayrkiiba waa dilaa tacadadat ilasbaabu walmowtu waaxidu kaneecaba waad isaga dhiman laakiin saacaddaada dhaafi maysid ayuha alaxiba walidalik baa in badan waxay ka waramaan culammadu markay masaladan tilmaamayaan shajaacadii nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo goobihii dagaalka u istaagay iyo wixii ka dhacay qodob lixaad waxaynu leenahay oo asbaabi nasriga ka mid a kahrat ducaa wa kahrat dikri illah dadku inay ilaahay baryadiisa badiyaan iyo xuskiisa dadku iminka xuska dad kalaa la badiyaa intaa dadku warramaya dad kalaa wax kalaa la xusaya laakiin ilaahay xuskiisa in la badsado waa mar labaade baryadana in la badiyo waidaa saalaka cibaadii canii fainii qariibun ujiibu dacwata daaci idaa dacaan waayo baryadu dee wax waliba isagay gacantiisa ku jiraan rabbi subxaanahu wa tacaala وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم ب1000 من الملائكة
إلهي قرآن كوحي نوغو شيغيا نبي عليه الصلاة والسلام مركو إلهي بريي إلهي سبحانه وتعالى ملائك أي مدد وغنقي ملائك بالو قرقاري سودكتي يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون إلهي وحليه حتى لكو لمتان قالوا وقوب دقالا يدعدينا تكتان سقما إلهنا حسا واذكروا الله كثيرا بإلهي وقوب دقال بلجوغا لكن إلهي وحليه سبحانه وتعالى إلهي إنبضا حسا وأي محين حسك إلهي يبريديسا قوبها وليبا مركا لجوغا الله بدينيا دي نصرقا سيقا قعنتي سيكوشرا وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم قول إلهي بيكتي ستالله هيل إلهي باله ملك الله قصوه لا مجرته إذن وين نبضنا إلهي سبحانه وتعالى بريديس ولذلك با إن بدن حديثة يكسو عرفت قوبه ونبي استاغي ودن أما بدر هالنقط وحد هالنقط قوبه دقالي جو تغي إساقو إن بدن إلهي بريه سبحانه وتعالى أيها الأحبة مادام وقتك اسكا كوبين رماينا كوبان وغنيه qodobka toddobaad aan idin tilmaamaya waxa weeyaan isla weynida iyo cujbiga iscajabinta iyo al-iqtiraar bilquwa walkathra waa lagu jabaa iyagana istikbaarka dunida waa lagu jabaa sidaa awgeed baa ilaahay wuxuu leeyahay laqad nasarakum allahu fi mawaatina kathiira ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين إلهي ويدين هيليني ويدين قوليني قوبا بدن با إلهي دين كهيلي باللي حتى يوم حنين بالليدين هيلي لكن قرمي تشابين وهي تشابين مركي كثرتو دا إلهدين مانتا تريري وما تشابينو فلم تغني عنكم شيئا با إلهي وحنا إذن كما يترين دولكنا وإذن كعجل اليوم قصة داسي وقصة كساس تنيد غزوة حنين كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين كثرة ما يشو معها وعدي إلهي لجرو سيدا وقد با إلهي لي بدنا في أير وكقو ليستي فئة ربضان لي لكن ما هيك كقو ليستي بإذن الله والله مع الصابرين إلهي سبحانه وتعالى إذن كيسك كقو ليستي ثامنا وحين ورنكرنا أسباب النصر قوحة كمدا الاجتماع وعدم التفرق والتنازل دتكو إنو مدوبه في التاريخ لما هيو مسلمين مدوديو لجبيي إذن إن مسلمكم مدوبه وتفرق الله إسكايلا ليتنازع ووحيبها كان قوش إن لتفرارقه وإن بميلك بحضانا ووحيابها فشل كي ضعف هزيمة كان وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا أيها الأحبة انت أنصو شيئين كلو بدن قرآن كتا الله وهدي وقت اللو هيلي لها شرح بدن وباهني أمثلة بدن ومن سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إيو dadkii muslimiinta ka dambeeyay baa la heli kari lahaa waqtigoo kooban daraadeed baan u soo koobnay intaa cagsigeeduna waa asbaabul haziima intaa aan tilmaamnay haddaynu dhihi intaasoo dhami guul bay soo dedejisaa intaa cagsigeeduna waxa weeyaan guul darraday keentaa iimaan la-aantu guul darraday keentaa camal faasidoo dadku sameeyaa guul darraday keentaa muslimiintoo midoobi waayaa guul darraday keentaa goobtoo la sugmi waayaa guul darraday keentaa cujbi kugu dhaca guul darradu keen waxaynu sheegnay cagsigeedoo dham iyaguna guul darraday keenaan kelmaddu waxaan ku soo koobayaa markaasi waa eray qurabe war haddaynu ilaahay tiisa raacnana waa guulaysanaynaa oo wixii layna faray aynu sidoodii ula nimaadno ama icdaadul cudda ha noqoto ama iimaan ha noqoto ama camal saalixa ha noqdo
wixii layna faray haddaynu raacnana waynu guulaysanayna. waxa daliil u ah saxaabadii nebi maxamed oo tiro yarayd ayaa mar qura dagaal ku wada qaaday labadii dowladood ee dunida ugu weynaa, markaasay labadaba ka guulaysteen. ma jiro gooba isugu yimaadeen oo muslimku uu ama tiro badnaa ama ciidan badnaa ama cudud badnaa ama cuddo badnaa ma jirto. goob kasta oo la isugu yimi oo dagaalada saxaabada aynu tilmaamayna ka dhaceen, iyagaana tiro yaraa, iyagaana hub yaraa, iyagaana zaad yaraa, haddana intaba ilaahay uu u hiiliyey. sababtuna waxa weeyaan markaynu soo duuduubno diintan oo dhammaystiran bay xambaareen. innana intaynu diinta xagga dambe ka tuurra waxaynu leenahay ilaahayow noo hiili. waa mid subxaana le taasina. sala allahu calaa nabiyina muxamedin wacala alihi wasaxbihi wasalam walxamdu lilahi rabbi alcaalamiin. ما شاء الله، جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء. إلهي سبحانه وتعالى شيخ انت ونور الشيخ إلهي نقو أنفعه، السجن ميزانك حسناتك إلهي سبحانه وتعالى هو قدره.